waxaa la sheegay inuu diigeedaami jiray subax walba si uu dadka ugu kiciyo salaada subax. maalin maalmaha ka midana waxa uu yimid ninkii beertu ku noolaa lahaa, waxaana uu ku idhi, maanta kadib ma eedaami kartid, haddii kale baalashan kaa rifayaa. wuu baqday diiggii, eedaankiina uu joojiyey isagoo naftiisa ku leh, subaxuu eedaankayga uma sugayo, diigaga jaarkayga ahina way eedaamaan ee iska daa. isbuuc kadib ninkii beerta lahaa ayaa mar labaad u yimid diiggii, waxaana uu ku idhi, haddaanad sida digaagadaha u ciyin baalashan kaa rifayaa. uu ka tanaasulay diiggii cidii lagu yaqaanay, waxaanuu bilaabay inuu qayliyo sida digaagadaha. waxoogaa markuu sidii ku wadayna ninkii beerta lahaa ayaa dib ugu soo noqday, waxaana uu u sheegay go'aankiisii uu dembeeyey. waxa uu ku idhi, haddii aanad beer dhalin sida digaagadaha, waan ku gowracayaa ee beri soo diyaargarow. halkaa markii maraysay diiggii ayaa aad u ooyey, isaga oo leh, hoogayge miyaan iska dhinta aniga oo eedaamaya. ka bara qur-aanka kariimka ah dugsiga kaamil adiga oo baradaada jooga.